hooyoy waxaa tahay halkii aan ku nastayoo igu hoose qorax kulul hooyoy waxaa tahay tii aan dhex hurdayoo marna aan ihaakaasan hooyoy waxaa tahay hambadii macaaneed marna aan ilmaameed ikhwaani akhawaati waxyaalaha aan maqlayno gabdho hooyadood hadalka ku celina wiilal hooyadood hadalka ku celina dad hooyadood nooshahay oo aan fursada ka faa'iidaysanin wallaahi aladii laa ilaaha hayru kiinni hooyo leh maanta ee aan ka faa'iidaysanin maalin buu ka shaqeeya kiinni hooyo leh ama tiinni hooyo qabta ee aan ka faa'iidaysanin maalin buu ka qomumaynaya mujtamacaadka muslimka dhexdooda hooyadu waa boqorad hooyadu waa melikad iyadoo cajuuso oo habar ahoo sariirta ku urursatay baa kulli laga wada amar qaadanay wiilkeeda madaxda ah ee ummadda melik iyo boqorka u ah iyada markuu u yimaado iyaduu ka amar qaadanaya iyadaa boqor ah hooyo way ku baahan tahay in badan bay xooggeedii ku siisay way daciiftay mar walbo aad xoog yeelatid iyadaa daciifaysa cishaada markay nuur yeelato aad si fiican wax u aragtiteedii way daciifaysaa dhegaha markaad si fiican wax ugu maqashid way jigaysaa hooyo dhegihii bay ka daciiftay marka murqahaaga ay ku kuustaan oo aad xoog yeelatid kuweydii waa dabcaayaan way dabcaayaan xataa hooyo waxay kuu murtay timaheedii quruxda badnaa ee madoobaa waa kana hooyada maanta tima caddahay way ciraysatay hooyo maanta waata way soo godatay sariir ayay hooyada saaran tahay sariiray saaran tahay orbaad joogtaa waad raaxaysanaysaa waa hooyo aynan xaqeeda gudi karin oo markay oonto biyaha kuu hormarisa adiga oo markay gaajooto cuntada kuu hormarisa oo markaad xanuunsato hurdada aan ladin weligeed oo marnaba xataa aad weynaatod cirro yeelatay aan filaynin inaad qaangaarta aan weli filaynin daa'iman hantaaqda kaa ilaalinaysa walaalayaal cuquuqa alummahaat ووح رسولك أوريبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثك صحيحة أن الله إنه رسولك صلى الله عليه وآله وسلم كور رمي إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى الله سبحانه وتعالى حرام بكدغي وهي إن عاقل بالنقض هو مسرح حرام النبي صلى الله عليه وسلم أيا wuxuu arkay isagoo jannada ku jira صلى الله عليه وسلم markaasuu yidhi fasamiعtu sawta qaari'in qof qaariya ayaan codkiisii maqlay buu yidhi nebigu صلى الله عليه وسلم فقلت من هذا waxaan waa kuma ninkaa qur-aanka akhriya codkaas ku ayo سألوين وحارثة بن النعمان وكان بارا بأمه وحليل وكان أبر الناس بأمه وإذي تذكى وقبع الربا ضنبوها لأنه يقول ريو كواركي النبي صلى الله عليه وسلم مركو لو شيء إن كانوا جناد كواركي وحارثة بن النعمان أيوحي هذا كمعروف كاويني كذلكم البر وأكاسم سوف والدك إخواني وأخواتي أدويدنا ماموس يشرف أيام الوهلة آخرنا وحلوقوا على مقامات أدوى وين